السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي ولله شرف سلام الباجوكتين مركور أنكو صلينو نبينا صوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة ولله شرف طله فضلا مركور دايقو عصبتها سبسكرايب إيسار فيديو هدوكو عجبين لايك تنوصار إيرقلنا أي نوت هاي ما انتو حايدي وذا قصة كودعدي قبر سوماليات gabadhan waxay ku nooshahay dalkeena Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho gabadhan waxay leedahay waxaan isjeclaanay wiil aan isku xaafad ahayn oo aan daris ahayn marka waxay leedahay aniga wax yar waa aan ka yaray 5 sano meelahaas ayaan ka yaray marka waxay leedahay markuu asaga soo hana qaaday waa la isku keen forjeen jiray aniga marka waxay leedahay markuu asaga oo 20 jir camal ahay anigana waa ka yaray oo 5 sano camal ka yaray markaas aniga sheeko iyo waxyaabahaas ma aqoonin laakiin wuxuu dhihi jiray aniga hiblaayo أنا إيجوكتا أنا جورسن دونا إذا كان محيديه جري لبدين إشينا وأوجدنا وأسكورسن دونتين ما حيل هذا مركي أنا دور سنة كبعدي أنصوي نادي وحيل هذا ويلكي واشك سنة شاك أيان دحمرتي كذب وأسكورسن مركي أسكورسن وحال إيسو قلبي جورجي هو يديس ومركز قل نلوجا بنية جورجا أيان أسكورسن أيه لهذا وحاجري لهذا سيدا وكلنت ولا لهيس كواوين أو ilmo qabeen oo banaanka deganayeen laakiin waxay leedahay aniga reerkayga aniga ayaa u weynay marka waxay leedahay markii aan guursanay waxay leedahay sanadkii hore farxad aan ku nooleen iyo bashbash iyo barwaaqo laakiin waxay leedahay wax ur ah ma yeelanin kadib waxay leedahay sanadkii markii uu sii dhamaanayay hooyadiis waxay bilowday naagtaada ma ilmo dhasho naagtaada ma ur yeelato anagana waxay leedahay waxaan ku jirnay tiri ee isku faraxsanahay oo halkii sano ugu horeey wili ma dhamaanin halka sano horena horta wax la walwala ma ahan almuhiim waxay leedahay sanadkii labaad markuu noo dhashay waxaa la bilaabay tiri maalmo isbitaal in la igeeyo isbitaal in la igeeyo oo la isoo baaro mararka qaarkood meelaha dhirta lagu gado ama dadka dhirta ku daaweeyo la igeeyo meel kasta la igeliye tiri daawo kasta la isiiyo si aan ilmo u dhalo waxay leedahay aniga daawooyinkii waa dhibsaday meel baa la isii wadaa maalmo baaritaan la igu sameynaa waxay leedahay intaas waxa ka sii daran dadka waxay leeyihiin heblaayo markii adiga lagu guursanay la guursaday muxuu ahaay cunugay dhashay uurna way leedahay waxaa la leeyahay dhahday sidoo kale into heblaayada adiga ka dambeysay uuray leedahay heblaayo cunugay dhashay hal sano la qabaa gadaashaha la guursaday adiga 2 sano lagu qabaa dadka waxay leeyihiin markii aniga banaanka lagu arko kale into oo magaalada waxa la dhahaa uur ma yeelan miya wali ma dhalan miya hor dadkeen Soomaalidu aasna uga yaabani cunug hadii la horto adma lagu siina adma korka lagu saara waa may qofka in cunug dhash ida ka jecel ida ka muxuu ahay ka walwal badan ida ka muruga badan adma waxa ka gal su'aalahaas tirada badan waxa la dhahaa maxaa u dhalweysay uur ma yeelan miya heblaay ka dambeysay way dhashay heblaay ka horeysay afar ay haysataa heblaay saan ay haysataa adii horta marka weydiinaysid cunugii dhal adima kugu aftirsana waa may mashaakilkan ilmo la'aanta wuxuu ka dhaxeeyaa labadan qof oo isqabo adii tala hada siin kartid oo ra'yi siin kartid oo daawo u tilmaami kartid oo quraanka muxuu ahay quraanka ilaahay waa isku daaweeyaa oo ilaahay waa lagu baryaa hada quraan qaarkiis aad baraysid si ilaahay ugu fududeeyo oo dhees quraankaas iyo quraankaas aqriso oo quraan aad faraysid ama ducooyinka qaarkood aad faraysid oo aad u duceynaysid oo leedahay ilaahay idinka farxiyo insha Allah aad ku farxdiina helaysiin oo u duceynaysaa laakiin heblaaya ka horeysay heblaaya ka dambeysay oo ninka la hebla ka horeey hebla ka dambeey waxaas qalad waay cunugna meesha haduu yimaado adiga kuma abtirsanaay qofka artid ahaa marka waxa fiican su'aalaha dadka dhaawacay in laga dhaafo qofka ilmaha ka maqayn asaga ka rabitaan badan inuu ilaahay wax siiyo almuhiim gabadhii waxay leedahay sanadkii saddexaad markii la gaaray hooyadiis waxay dhahday soo istaag waxay dhahday aniga meel kale horta naag kale hadaan kugu dar naag labaad meel kale oo aad dagaysid male oo ijaar ma bixi kartid man isbixi kartid waa ku ogahay waxaan rabaa qolkan gabadhan aad ku qabtid inaan gabar kale ku keeno aad kugu soo aroosiyo gabadhan islaameedne ina isla gooynin labadiina oo iyada aad la fasaxo oo aad furtid aan rabaa hadii wiilkayga aad tahay wiilkayga hadaad diididne wiilkayga ma tihid ismana naqaano illa waa furay xataa naag labaad waxay tir naag labaad xataa iyada joogas naag labaad kugu daraa kuma dhahay maxaa yeelay laba naag ma biili kartid ana kuma biilay naag labaad ina ilmo dhashidna waa rabaa faca oo dhan ilmo dhalay walaalaha ilmay dhaleen maxaa kaliya kullu gooy maxaa kaliya saan ku yeelay
habartiisu si kasto ula hadlay si kasto yeela may dhahday waxay tiri banaanka isdaji kartid laba naagna ma beeri kartid waxaan rabaa qolkan gabadhan ay degan tahay inaan naag labaad kugu soo guuriyo iyadana aad furtid nin kale inta helaysaa maxaa isku dhajinay labadan qofoodna jecel ka dhaxay yaa wuxuu leeyahay habarteeyay fursadna si ilaaha ilma keenayo hooyo isdaji habartii may dhahday hadaa diididna wiilkay ani ma tiid man isnaqaano hadii kale inta gabartan waa furaysaa waa fasaxaysaa sidoo wiilkii gabadhii muxuu ahaay ku furay hadalkii hooyadiisna wuu jabin waayay gabadhii sidii lagu furay sidii markii lagu furay gabadhii niidi ayaa ka jabtay wiilkii isla markii habartiis ayaa gabar u keentay oo ku dartay qolkeedii ayaa la dajiyay gurigan gabadhan waxba kama qaadan gabadhan gabar hadal lagu jilciyay oo la miceeyay ahayd waxba kama qaadanin ilaahay uga dhaxbixiyay taagneed way ka dhaxbaxday way ka tagtay gurigii cideedii ay u noqotay bas gurigeeda markii uu noqotay hooyadeed waxay dhahday marka gabadheed markii aragtay inay niyad jabsan tahay oo dismoraal tahay oo niyada laga soo jibiyay oo muxuu ahaay ay rafaadsan tahay markii aragtay waxay u dirtay reabtigeed markaas oo gobolada jireen walaalaheeda waxay tiri abtiyaasha aad xag iska soo hawagadiso maskaxda soo dajiso jawigan iyo dadka xaafadan iyo hadalkan la wadwado iyo hadana ninkii gurigiina ku soo guursay dadkina isku xaafad way isla guriga naag la keenay dadka dhowdi gabadhan waxa lagu sheekaysanaa afarta lagu fiiqaa wiilkan gabadhan uu qabi jiray ilmo dhal weysasana loo furay marka habartu waxay dhahay iska bax soo hawagadiso iska aad reabtiyaasheed gobolada deganaayeen gobolada ay iska aaday gabadhii wayba ka raysatay magaaladii ay tagtay dadkii soo dhaweeyeen dadkii muxuu ay u tagtay dabcan qisada ma laga ogeyn meesha waxa gabadhan soo qabsaday laakiin waa taqaani markii xaafada qof cusub ay ku soo biirto dhalinyarada dhan waa muxuu ahay way daneynayaan gabadhii waa soo wareejinaa magaaladii la kala barbaraa dadkii ay u tagtay ku faraxsan yihiin abtiyaalaheed ilmihii ay dhaleen oo dhalinyarada ah oo iyada camal ah waa lagu faraxsan yahay magaaladii ka timid la dhahaa meel dheer ay nooga timid waa soo wareejinaa almuhim gabadhii jawiga dhan baal ilo siiyay sida loo wareejinayo oo loo farxad gelinayay oo meelaha quruxda badan loo geynayay gabadhii ilaahay amarkiis jawigii murugada badnaay oo naxtinta lahay iyo argagaxa lahay way ka baxday wayna ka raysatay isla markii iyada wiilayba la sheekaysatay oo isdhahaysay isku ilowsiye laakiin ilaahay wuxuu u qadaray wiilkii inay isguursadeen wiilkii markii ay isguursadeen oo meesheeda ay ku aqal gashay san xamar u soo noqonin meeshii markay ku aqal gashay dhowr bilood markay isqabeen ilaahay amarkiis gabadhii uur ay yeelatay uurkii markay yeelatay way soo walacday waxay tiri muqdisho aada cideeda aada طبعا way faraxsantahay in uur yeelatay xaafadina waxa looga yaqiin inay ilmo dhaleenin waa lagu sheekaysan jiray waa la iska ilaali jiray marka waxay rabtaa farxadan yarta inay xaafadii la tagto hooyadii iyo ehelkeedna way kolay ogyihiin telefoon ugu sheegtay laakiin inay u tagto ka farxiso dadkii xaafadan fikrada ay ka aaminsanayeen inay ma dhasho tahay inay ugu bashaareyso iyadoo markaas adiga dhowr bilood 3 bilood 4 bilood magaalada Muqdisho soo aaday oo caloosheeda soo baxays rabto markii magaalada ay timid طبعا wiilkiina markii iid ay baxdaba naaga lagu daray naagtii markii lagu daray asagana wax uur ma yeelanin asagiyaan dhahin istaghfirullah nin uur ma yeesho gabadhii lagu daray wax uur ma yeelanin kadib hooyadiis iyo dadkii waxay dhaheen maadaama gabadhii laga furay wiilkan uur ay soo yeelatay asagana xaaskiis wax uur ay yeelan laadahay isbitaal asaga hala baaro intii gabadhii hore la wareejinay oo dhan asaga looma soo baarin cilada inay asaga tahay in kaleentana maba la isku taxalujinba in la soo ogaado dadkan waxay u maleeyaan Soomaalida naagta bis inay wax dhasho naagta la wareejinaa waxa laga cilada inay ninka tahay almuhim sidii ayaa marka aan waxay dhahday markii magaalada aa imid oo aan arkay in muxuu ahay asagii naakal uu qabo markaas way ku ogeed markay bixisi ku ogeed laakiin naagti kale uu qabo wali wax uur aysan yeelanin marka waxay dhahday waxaan ka shakiyay cilad inay asaga tahay alxamdulillah dhahay haduu ilaahay iga bixiyay gurigii leegu dhibay oo warka xun maalin kasta la igu maqashiinay oo la igu kadeeday jaceelkiis waxba ima taraay jaceelkiis waxba ima taraayo hadii aniga meeshii niyad degan ee farxad aan ku nooleen oo maalin kasta hadal la igu juqeynayo kadib waxay leedahay markii aan arkay waa iska soo noqday magaaladii markaas gobolkii aan ka imid aan u noqday طبعا asagina ma arki kareetin xaafadii iska hor iimaanayna asag wax ma dhalin anigina uur ayaan leeyahay
marka waxay dhahday waa buu adkeysa waaye aniga ilna waaba ka baqay leedahay woona iga naxitiri markuu ogaaday inaa imaaday uurna aan leeyahay asagana waxba uur aan weli loo yeelanin aan waxay tiri waa iska soo noqday markii aan soo noqdin waxay tiri asigii ayaa isbitaal muxuu markii dambe tagay oo baaritaan isku sameeyay waxaan la dhahay mushkiladu waxaa lasoo ogaaday inay asaga tahay oo xaggiisa ay tahay ilmo dhalis la-aanta kadib hooyadiis markii ay ogaatay maxaa ku dhacay hooyadiis aad iyo aad ay uga naxday muxuu ahay waxayna ogaatay gabadhii hore inay dulmisay gabadhii dambeeto oo lagu daranay dabcan way iska furtay markii ogaatay wiilkan inuu xagga dhalmada xaggeeda ka jiran yahay way iska furtay way ka tagtay wiilkii niyad ayaa ka jabtay hooyadiisna wuxuu ku dhahay hooyo adiga niyada ay ga jabisay waana dhibtay waa igu kadeeday naagtii gabadhii hore intaan u maleynayso dhahay inaysan waxba dhalaynin laakiin wuxuu yiri saacada hada iska qabi lahay aniga ceebteedu ii asturnaan lahayd banaankana ma usoo bixi lahayn aniga cilada aan qabo iyadana saacadan way ila joogi lahayd oo ma ogaaleen cilada ina ani ahay ina iyada tahay waan isjeclanay tiri oo muxuu ahaa iyada ilma hadda kuma fikireenin laakiin waxay tiri hooyo wuxuu yiri hooyo adiga aniyad iga jibiyay adiga dadka ii jibiyay muxuu ahay gabadh islaamiyad had uur leedahay ilmo dhaloysa anigana saan ayaa igu dhacday wuxuu dhahay hadii gabadhaas aan iska qabi lahay ceebteedu ii asturnaa lahayd adaa dhabarka iga jibisay adaa dadka ii lagaday muxuu ahay gabadhaas islaamiyadna qof nadiif ah ay ahayd oo caafimaad qabto wax dhali karto marka wuxuu dhahay gabadhaasaaba iga nasiib badan yiri oo muxuu ahay aniga luqunteeda ka baxdu dhahay oo hadda xor noqoto ninka la gursto ilmo dhaloyso saacadan iyadana wuxuu yiri hadda ila joogleed ilmo la-aan ila ag fadhi lahayd marka habartii way isku naxday gabadhii way wacday waxay tiri gabadheedii iyo cafi raali noqo xaqaan kaa galay dambiyaan kaa galay waa ku dulmiyay oo kugu soo xadgudbay raali gelinay gabadhii siisay gabadhiina way ka aqbashay wiilkiina xaafadii markii dambe iskaga tagay niyada ka jabtay maxaa yeelay gabadha qisadeeda magaalada dhan laga ogaay kadibna xaaski kaleentan waa la ogaa inaysan ilmo u dhalin kadibna gabadhii inay uuriya soo yeelataa la ogaaday oo furay almuhiim qisadii sidaas ayay ku dhamaatay marka dadkan waxaa fiican horta ninka inaagta marka hore labadaba inay isbaaraan naagta kaligeed iyo waxba ma dhasho naag kaligeed ilmo dhalayso markay guri aabaheed fadhisay ee dhali lahayd iyada ma fahamteen waxaa laga yaabaa ciladan ninkan way noqon kartaa naagtan way noqon kartaa dadkan haddii muxuu ahay awlaada kasoo daahdane ma ahan in ayaga saas raali ka yihiin ama ku faraxsan yihiin ayaga way ka naxsan yihiin mana rabaa inay saas ahaadaan wayna kaa jecel badan yihiin ayagoo kaa jecel yani inay ilmo dhalaan marka in la weydiiyo maalin kasta oo la weydiiyo su-aalaha lagaba badaya ma fiicno marka walaalahayga sharafta le qisada aad kugu talagalay maanta intaas ayay noogu dhamaatay fadlan haddii ay ugu cusub tahay subscribe ii saar video hadduu idin cajibiin laagta noo saara waa inoo mar kale iyo video kale oo cusub waxaan idinkaga tagayaa sida caadada noo ahayd saliga nabigeena suuban calayhi afdalu salaatu wasalaam allahuma salli wasallim mubaarak calaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam